Facebook waxaan nagala soo xiriiray dad jooga Norway waxay leeyihiin anagu waxaan nahay dad qaxooti ah wadankii baan ka soo cararnay waxaana tagnay wadamadan Yurub sidaa daraadeed waxa la yiri waa la celinaya oo waxba ma la siinayo sababta ah dawladdiini ayaa ogolaatay in dadkaasi la soo celiyo maadaama dalkii meelo badan oo ka jira ay nabad ka taagan tahay waxay markii ka cabanayaan oo leeyihiin maadaama aan rabno inaan wax ka baranno dawladdeena Soomaaliya maxay go'aankaas u gaartay markii go'aankaas hadaad gaarteen bal ka waran waya waa maasanta xasan walaalaha dibadda jira ama kuwa su'aashan soo weydiiyay Norway jooga ama caalamka oo dhan Yurub oo dhan meel walba jooga waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed awal iyo aakhir boorto dalkan ay leeyihiin dalka kaliya adduunka ay ku leeyihiin waa dalka Soomaaliya la yiraahdo kii dal kale inta tagay fursad helay muwaadin kale ka noqday xataa wali shibirka duula irsiqiis waa dhulka Soomaaliya dal u ah Somali American Somali British Somali Kenyan Somali maxaa yaa la leeyahay Soomaalinimadii kama harayso way daba socotaa kii marka baxay ee sharci helay ee nidaam helay ee degay ee wax bartay oo boqolaal kun oo aad u badan ah waa alxamdulillah waana dacwana uma qabno sharciga ha laga qaado ha laga kansaro ha la soo celiyo ha la keeno balihi laakiin kii sharcigii waayay oo dalalkaasi nidaamkii iyo qaanuunkii u deganay oo u saamixi waayay inuu sharcigi helo inuu waqti kaga dhumo meelaha taagtaagnaansho iyo qaxootinimo aan xuquuq lahayn daw ma aha inuu soo noqdo oo dalkiisa yimaado oo dib u dhiska ka qayb galo asbaabtii in badan oo kamid dalka looga cararay way soo yaraatay wayna sii yaraanaysaa amni darro haddii dalka looga cararayo maanta way soo yaraanaysaa dhaqaale xumo haddii dalka looga cararayo dee annagaa laga rabaa inaan shaqaysano oo aan dhaqaalaheenni soo kabno oo soo noolaano dadka Soomaaliyeed kuwa aan sharciga helin ama waayay oo si cad loogu sheegay inaan sharci helin in ay bil walba gacanta u horsanaato oo ay muxuu ay sadaqa ku noolaadaan ayagoo shaqo heleen waxbarasho heleen karaamo kale aan heleen ee iska joogaan muxuu ah Yurub daarada dheer iska dhex taagnaadaan micno badan uma laha kii sharci helay waa maadsan yahay garabkiisa Allah galo ha noolaado si fiican iyo sharaf iyo karaamaha kula noolaado dadku uu noolyahay kii sharci waayay siyaasadda dawladda inuu soo noqdo waayo oo dalkan uu yimaado waa madaxweyne su'aalaha